أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن السلام على دمان أصحابتي ولا راح channel دقائق الدحشيدة سو هذا ومقال عصب معلم عصب إلى يا مهضلة مركل هذا نوكل مي إن شاء الله والله ليال أكود فائدة سنة معلمها أتك أخرج بدن وناق بدن إن شاء الله إلهي النوشي رسولك النوشي صلى الله عليه وسلم أنك فائدة سنة أن سدعون قفل مشوتو إلهي كأمان يلو مقالك عوض حق جدين سدح خفوت وداهر على سو يلا وقفوا قلب أيا سارن كل عاشر وتقرني السين إن شاء الله مقالك عاو waxaan samayn doonaa haddii la yiraaho muuqaalana waa idin sii dayn doonaa oo daawanaysiin waxaan u baahanahay marka maskax fresh ah qof ilaahay ka cabsanaayo qof waxa laga hadlaayo oo dhan siday tahay intuu u daawado uu dhuuxo uu fahmo kadibna commentiga markaas soo qoro sababtoo ah waxa meeshaan caawa ku jiro ee aad arki doontaan waad yaabaysiin haddii ummadii nuucaan oo kaleenta looga kala aamuso walaalayaal ummadda Soomaaliyeed dhibaato in ku filan 34 sano ku soo dhex jireen marka waxyaabaha ma aragtay ayadoo qof wax xun sameynaayo loo jeedo haddana laga aamusaayo dulmi wado laga aamusaayo wax fiican ma ah ya anaga walaalahayga iyo aniga channelka dhaqaaqa dhaxshide ballanta naga go'an waxay tahay cid kastoo dulmi wado cid kastoo xumaan wado ee aan arkayno subxaanallah anagoon wallahi kana xishoonaynin kana cabsanaynin in aan runta wajiga ka saarno halkaan u joognaa walaalahayga channelka dhaqaaqa dhaxshide waa mahadsantiin jazakumullahu khayran sida ii garab taagantiin waxaan idin ka codsanaa muuqaalada aan soo geli inaad share gareysaan like ta meel dheer gaarsiinaysaa insha Allah commentiyada ka qayb qaata qof walba aqligaada iyo maaragtay intuu garaadkaada ku siiyo iyo IQ-gaada uga qayb qaado commentiga muuqaalkan caawa wuxuu u baahan yahay qofka inuu soo jeedo fahan fiicanna uu fahmo markaas kadibna uu commentiga ka qayb qaato haddii aad igu cusubtood channelka subscribe ii saartay waa kaaga mahadcelinaan ku soo dhaweynaa waqti munaasaba imaatay halheenta oo mar walba aan halkan ka sheegay waxay tahay hool ayaa taalo wax sahlan ma ah ciddii yacni ka qayb qaadan karto channelka aan hore subscribe u saarin waxaan ku leenahay annaga safarkeena wuu dheer yahay sahaydaada soo qaado safarka muuji qof nala shaqeeyo cid diidaysa ma jirto u wada baahannahay ka qayb qaada shaqada yacni iskaa wax u qabsaa la yidhaahaa halkan ka qayb qaada intii aad qaban kartid oo aad samayn kartid bulshadaadii waaye wax sii baaba'ay wax aad qaban kartid marka oo fara badan ayaa jiro samee insha Allah qof walba hadhihin aniga kolley waxay way isu kay saaran yihiin aniga dibadahan ku noolahay aniga waan shaqaystaa aniga muxuu ahaayeen ilmahayga waxba ii bartaan aniga anaaninimada meesha aan ka saarno wallahi bulshada Soomaaliyeed intii yacni qof uu dhiban yahay kulligeed dhibaatada way ku dhex jirtaa haddii wax kaligaa aa qabsatay kalinimo qof kaligiis wax ma ku guuleysto soo dhawaada walaalayaal wallahi wax dulmi weyn ah halkan ka socdo ninkan daahir cali soo waa u jeediin iyo muuqaalkayga wuxuu qaabilsan yahay Aisha aad garanaysiin oo gabadhii baraha bulshada in badan ka ooynaysi weli maalmihii la soo dhaafay si xad dhaaf uga ooynaysi sidoo kale wiilkan wajigu uu u xiran yahay magaciisa waxaa la yiraahaa Mahad Sergio miya oo magac dheer yahay sidaas aan la yiraahaa waa wiilkii ay iyada wiilay u dhashay sida macnaha hadalkiisa aan ka soo daawaday okay ilmaheeda 3 waaye 2 wiil iyo gabar hal wiil oo dhaxo oo macnaha wiilka weyn ma ahana wiilka kale ayuu aabihiis yahay okay waad fahanteen aan filaa insha Allah intaas waxaan ku talgalay hordhaca aad ku fahmi leedeen barnaamijka aan ka hadlaayo iyo muuqaalada idin sii deen doono inaad la jaan qaadaan okay Aisha markii caruurta laga qaatay afkeeda waxay ka sheegtay in macnaha balwad ay yeelatay ku dhibtootay magaalada gashay nolosha ka dhacday sabaha ilmaha looga qaatin kulli waa nuucaas hooyo inta la iska soo weeraro ilmaha laga qaadanayo ma jirto ama inay iyada ay isku filnaan weysay hooyo isku fil ahaan weysay ama inay ilmihii iyada isfahmi waayeen oo dhibaato ay ka dhex dhacdo waxaasaa lagu qaataa macnaha ilmaha oo markaas qaadashadana ay tahay badbaadada in yacni lagaa badbaadinayo waalidkaa laga badbaadinayo badbaado ilaahay yaa leh allahna wada xifdiyo
dhibaatooyinkaas oo dhanna waxa keenaya waxay tahay ummadda Soomaaliyeed iyagoon macnaha fahansaneen meesha ay ku nool yihiin haddana kusoo wada abuuray indhaha aan kala qaadno aan fahanno meesha aan joogno aan ogaano labadeena lugood aan ku joogsano taas markaan ka baxo Caaisha ma galaya aniga dhibaatooyinkii ay ka hadlayso markay soo koreysay iyo historygeedii iyo inay dhib ku soo kortay inay hooyo aabba aan isqabin ay soo yacni ay yacni dhibaato kasoo gaartay hooyadeed ay soo dhibaatas waxaasoo dhan ay ka hadashay iyada inay been sheegaysa iyo inay hooyada been ay ka sheegaysa iyo inay run sheegaysa labadaba ma xaqiijin karo mana saxiixi karo sababtoo ah ilmaha laftirkooda qaarkood markay koraan ay weynaadaan qaar waxaa jira waalidka been aad ka sheego oo ayaga marka hore la celin waayey oo caasi ahaa oo soo muhooyato ahaa oo guriga ka carari jiray markay weynaadaanna dhahaayo waalidkay aniga wuu i dayaca bilcagsi marka qaarkeedna runay u dhacdaa oo waalid ilmihiisa dayaco oo daryeel aan helin oo dhibtoodo taasna way jirtaa oo marka aniga ta iyadii iyo hooyadeed ma gali doona laakiin waxaan halkaan ugu talagalay muuqaalkayga caawa inaa uga bogataan in aan Caaisha aan iraaho waddo aad u qaldanay waxay ka raadisay ayadoo dhay iyo dawo iyo daryeel raadinayso ayay waddo qaldanay waxay ka raadisay daryeelkeedii iyo dawadeedii nin aan iyada dhaqtar u noqon karin ay dawo ka raadisay oo la yiraaho Daahir Calasow Daahir Calasow cid aan garanaynin ma jirto Daahir Calasow ummadda Soomaaliyeed yacni guud ahaan markaan isku qabto kulli dirow daaroodow hawiyoo dhan beelaha jareer weynoo dhan digil iyo mirif ma dhibaan qof kasta Soomaali reer xamar reer baraawe yacni cid kasta oo Soomaali ah saqiir iyo kabiir cid uu naxariis u haayo ma jirto yacni bulshadii waxaa la rabaa inay wax fahmaan yacni wax ogaadaan ninkaas intaas baraha bulshada uu ku jiri inuu dad dhibaateeyo ma ahane asoo dad macnaha u naxariisanaya arka inta gabdhaha emotionalka ooynaya uu dhahaayo soo aan lacag kuma siini soo aan wax kuma soo dirin waa in ayaga laftirkooda rakaato iyo dhibaatooyin iyo wax badan uu ku haysto ya gabar gambiis ma dheero gabdhaha uu baraha bulshada ku rifi jiri oo nicimo jookar kow ay ka tahay uu ceyn jiri uu iska saarnaa iyo wax walba uu kasoo gudbin jiri ayuu maanta wuxuu iskiga dadkii wuxuu u aqrinoyaa inuu yiraaho muxuu ahaay qurun iyo qabiil iyo muxuu ahaay qaa'inimo ayaa laga shaqeynaa asoo dhahaayo oo halkaan muuqaalkiisa ku daawan doontiin gabadhan Caaisha marka ninkan ayaa masawiro kaasoo diroo yiri Caaishada dhibaatadii iyo emotionalkii iyo wixii hooyadeed iyo koriinkeedii iyo wixii ay ka hadlaysay ayuu wuxuu uga faa'iideysanaa uu leeyahay muxuu ahaay soo aniga wax kuma siin soo aniga hadda ka hor kaama farxinin macnaha muuqaalka dhexdiisa wuxuu ku leeyahay aniga hadda ka hor soo wax kuma siinin soo kuma caawinin soo kuma farxin kaama farxinin ama kugu sheeganayo miyaa la arkay sidaas daraaddeed ninkan adiga horey kuu qabi jiray ee mahad la yiraaho wuxuu ii soo diray masawiro fara badan oo adoo qaawan oo cawradaadii ah ninkan asagana muuqaal meeluu soo joogsaday wuxuu leeyahay wax aniga aan ka soo duubay iyo wax kaleento ma jirto waxaa jira marka qofkii wax daawanayo markuu subxaanallah uu yacni maskaxdiisi kaamil ay tahay rabo waxaan inuu u guda galo fahmo wax uu fahmayaa jiro oo fara badan gabadhan ayadoo wuxuu sameynaa lifeka ay saaran yihiin ayuu wuxuu leeyahay muuqaaladaas uu kaa soo diray dadkii meesha la saarnaayo o dhanaa waxay dhahayiin marka ii soo dir aan aragne wuxuu leeyahay inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun ma muuqaalo qaqaawan oo iyada laga soo diri ayaa aniga dadka u diraa inay dadka xishoonaynin inay dadka cibaalo yihiin marka iyadiyo dadkii ay warsanayeen iyadan u diraa uu leeyahay Caasha ma ku soo gaar hudda gabadha la yiraahdo waxay leedahay Caasha ma ku soo gaar muuqaalka Caasha ma ku soo gaar kadib gabadha marka ay muuqaalkeeda si fiican u fiiriyo waa idiin sii deyn doonaa waxay sameynaysaa live posted ayaa soo qorayso macnaha uu soo qoraa livekeedii waxay sameynay boos ayay gelinaysaa way istaajinaysaa booska markay geliso bacdeen wuu soo wacaa hasaa hoos ka soo wacay qofkii aqli lagu fahma wuxuu leeyahay waa ii soo dirtay dheh ilaan gabdhaha rakaatooyinkaas ku haystaa mogta waa ii soo dirtay isla markay booska kasoo baxdo waxay leeysaa hudda may maqashaa masawirada waa la ii soo diray anoo qaawan oo mahad oo muuqaaladii uu iga soo diray ayuu hadda ii soo diray Daahir Calasow marka daahir ayaysan dadkan garanaynin yacni shaydaanay waxay ka raadisay shafeeco daahirka marka wuxuu ku qaylinaa kol hore inaa idiin sii deeyaa fiican
يدي الظاهر بالواحد أحمر عاي داوشة وعن daahir cali sow dhagayso hadda waxaan kugu soo diraa whatsappkaaga fiidiyoyaashaadii sawirradii oo ka soo qaaday iskashuudyadii oo dhan hadda whatsapp kugu soo fororgariyey waxay ku leeyihiin hadda wax u diray hala keen whatsapp kaaga fiiri marka dhagayso hooyadood iyo majeerteenba anaa wase dhagayso sano hadda kadib ayaga caynaya meel u soo fariisanaya hadday run tahay daahir waxa loo soo diray ninka uu u soo diray hadday run tahay fiiri whatsapp kaaga gal dhagayso waxay leeyihiin stress ka qaadin waxay leeyihiin mataqaanaa harada xasan iyo rag waxay leeyihiin nin kastaba ii soo dir saan gabadh cawradeed nin ugu diraa bal akhlaaq darada fiiri gabadha cawradeed ka faafinta ka qayb gala haddii wax loo diraa iyadoo ba arkaysa isoo dir daahir yab wallahi fiir akhlaaq darada ay ku wada hadlayaan kulligood fiir waa hus waa wixii sundi salaad way inkiree iyadoo dhagaysanaysa inuu yidhi aniga wiil unbaa gabadhaas ka dhale oo igala dhexeeya soo qabso soo qabanaya qalanjo dee haa way qarinayaan daahiro way qarinaysaa fiiri daahirow aniga dadka beenka war ilaahow haddaan caawo idintuu barraacaayo ama aan qaladir ku ilaahu rabbi daahiro mid baa kuu sheegaya waa gabar Soomaaliyeed barraac maxaa keenay meesha idhigeyso daahiro soo markaa ku ibaado buu kugu dhahay maxamed goobe qof gobo weeyaan ha saan sheega ma noqde ha haye gobonimadaada loo dhashaa in adeerkay Aisha hadda ka hor ma ii timid qolkii lacag ku sii weliga hadalkaaga miiga maqash may meel aan ku sheegay dhibkaaga ama hadal ama kula soo xiray wiil taleefanka isma ku yiri may intaan ku caawiyo on ka farxi ma ku dare ha qasana ka soo wareegto dadkaan wada jaahilniyo dadkaan dad jaahilni waaniyo gabar yar oo ilma laga qaato wax laga tabaraac kar maxay xagee gabadha qabiil ka soo gashaa gabar yar oo ilma laga qaatay oo u baahan ilaahay rasuulkiisa u baahan oo naftu ay hayso oo aan seexan oo habeenkii isku inta kiniin la qado ishurdisiinaysa oo nafta iska qaadaysa oo hurdaan caad u saaca karin waxa laga dhex raadinaa ku dhex jira maxay siyaasadda ifaansi iyo qabiilka ku dhex jira abo inay waalaan bay rabaan wax inta yarta caafimaadkayga ka xun yihiin hadda ala hal caaw giftirka oo dhan hadda raadinaya qoslaaye walaal kulliyan wacaya team giftriska qabiilada oo dhan baa wacaya caaw hal lagu caawiyo qolka kayga isugu tagaynaa si fiican oo lagu caawinaya dadkaana ilaahay baa ka weyn haddii adiga kaliga aad tahay walku dhan ilaahay baad macigiista ilaahay waa kali soo ma sax ha qofku moogta meesha lagu tusha ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa joogiyaa bema dadkuna waxay dhahaan bisha ku jecel bakool muxuu ka dhibaa haddii hadda Soomaali ku dhaku nacdo ilaahay ku jecel yahay wax ka qaaday male salaada un duko adiga qaaday malaha salaada ilaahay duko oo sallallahu alayhi lagu gaade ha insha Allah hadda salaada ka tagto ka bixi mays dhibaato salaada ilaahay duko waxaana waa laga baxayaa waxa hadda meesha soo korayana waxa weey waa dad qaacinimo iyo qurun iyo qabyaalad ka shaqeynaya weey ha waxa uu sameynayay qaalidmo lamaanta ya hadda harada xasan wax yahay nin rag ah oo laba xaniyooda oo Cabdi Ciise ah maanta in qol reemaha saas laga caayo wallahi oo billahi oo tallahi oo lagu falanqeeyo oo loo soo furo ninka qabiilnimo ya qalad weeyaan qalad lama arka laakiin سيب لو وقفان قاي كلا ارتقل ظاهر هو سلامي وكا قاده قبلنا سلامينا ولا شيء وحسب ساعة قولك صفر دي قبل ماشي برامج كلا طول قبل أرت إسكندر سعيد سواء شيء مركب حاجة سوي نفستو يمو وحكا هلا مريها دور أنا شيء صعنه والله وحكا هلا مايا ديار رئيس الدعاء بالقايد قولك أسكح استرس كهو سيادة ترتيب ست جنا وباشرنا daahiro fiidiyoyada gabadha ma u dirtay naa wax ma lagu soo diray ma aragtay saas ku jira daahiro u dir bita u dir anina qancaan rabaa mabaay macaane caasho ha سلامي يا كوميدي أداك أركي waa kaa qaaday booba macaan ah waa kaa qaaday xawaaniga ay hay soo dirin sharmuuta ee adiga ayga futada inta saa u kala qabatid iska dhaxgili hooyada siilka ka wasay sharmuuta ee candhada weyn qabiil baa ku riixaya ma garanaysaa faqiirka cidna ma qarinayso ilaahay baa caadila xaqaadii afka laga daboolan feeruhu ka dilaaca adeer wiilkeygii gabadheedana xaqooda ma qarsoomay wax walbood samaysaan si kastood u dabooshaan ha ka yaabin inaad qarisaan mana qarin kartaan isdaalinaysaan faanta gaalada anaga wadanka kugula nool lahay jarmalka joogta Soomaa ها جرمال كي جوكتا waxaa sameysay furisan bay joogtaa gobolkee joogtaa baayir sama baayir ana joogay
daayro ma u dirtay alla ilaaho walla ilaaho ilaaho fiiri naami way ma qalaysaa maqlaysaa hudo dhegeyso midaan ku sheegayaa hudo way maadaama waddanka maqlaysaa haa waa ku maqlaa caashoy malay maqlaa abaa fi uu ii soo dira daayir calasow ninka ma fahanta anoo qaawan buu u dira walaalle inaa lillah caashoy baaye macaaney wan shoot ma igu soo diri kartaa ma kuugu soo diri kara baa anoo qaawan cidno uma dirayo see u diraa laa laakiin ilaaha ila allah maxamed rasuulullah laakiin walaalayaal ninka toban iyo intaasuu isoo diray toban iyo maya intaasuu isoo diray qoftaan tol male dadna male niyo soomaaliga gabadhaan la garab qabto gabadhaan hala garab qabto maya soomaaliga daahiro gabadhaan hala garab qabto arrinka ilmaha qaabka lagu soo celi karaa idii sheega gabadhaan hala garab qabto soomaali ninkaas wuu waxa baabiiyey miyay nolosha qabataa guys waxa miyay qabataa miyaa u qalmaa waxa waxaan filaa inaad daawateen macnaha hadalkii aan hordhaciisa idin siiyey ee ahaa macnaha in ay lifeka bows ay dhehayso kadibna uu leeyahay mar alla markay lifeka kasoo baxdo hadalkeeda inuu been yahay horu a ka garanaysiin si fiican u fiiriyo walaalayaal kusoo ceshta markii ma aragtay ma laguu soo diray caashay fiiri ma kuu soo diray wallaahi waan hoyan la'ahay ma laguu soo diray masawirada qaabnaa markii la yidhaaho ay lifeka ay bows siiso marka ay kasoo baxdo ma aragtay muudka macna ay booska kasoo baxdo walaalayaal wejigeeda fiiriya isla markaas hore waxay ka dhehaysaa waa lii soo diray hudaay waa la ii soo diray anoo qaawan aa lii soo diray daahirkan markaas kadib uu soo hadlaa uu leeyahay dad ma haysata gabadhaan in loo gurmado waaye in loo kaco waaye 10 iyo dhowr muxuu ahaay masawir oo qaawan ayuu ninkaas iiga soo diray okay wuxuu marka uu kusii andacoona uu leeyahay dawow meeshaas ka dhex shidaa marka dabkaasaan rabaa uu shidaayo dadka inaan fahansiiyo laga yaabo inaad muuqaalka daawatay laakiin aadan arrintan ku feejignaanin wuxuu leeyahay haddii maaragta dadkaas dad wanaagsan ay yihiin sababtoo ah ninka maaragtay wiilkaan wejiga u xiran yahay wuxuu usoo koray muuqaal kaleento wiil kaleento asagana waa idiin sii dayn doonaa wiilkaasu marka wuxuu ku dhagan yahay wuxuu leeyahay qaalid mullo wiil la yidhaaho ayuu wuxuu leeyahay anaa ina adeerkeed eh kaasaa yidhi mogta anaa ina adeerkeed eh labadaanna dad ayaga isu xigo waa dad ilma adeer ahoo yacni tol ahaan isu xigo wuxuu leeyahay marka uu meeshaas dab uu ka shiishidaa haddii macnaha gabadhaan tol ma laha dadka tubaraacina ahay iga dhigaayiin waxaa dhahaayo daahir calasow dadka qaa'inimo iyo qurun iyo qabyaaliiste ayay ka shaqaynayeen bal daahir calasow arrintaas ka sheekeenaayo yah maxaa ka tireen waa hooyada iyo aabbaha qabiilista waa asaga wax qof uga yacni xididdo mirirsan oo qabiilka miyaa jiro haddana dad si gaar ahaaneed uu ugu arxamo soomaali dhexdeeda ma ku jiraa daahir kuma jiro dadka waa inay daahir bartaan daahir subxaan allah 100% markuu hadlaayo waa kadaab beenaale munaafiq dadka isku diro shaydaan aad u xun wallaahi intuu qof xun yahay bini aadan laga cuudu bilaysta dil dhilay ninka laga cuudu bilaysanayo asaga waa dadkii uu isku sii diraa wuxuu leeyahay marka ninkaad qaalid la yiraah ayuu u soo koray yaa oo ma u qalanta iyadii emotionalkii iyo ooyintii uga faa'iideysanaa maadaa u qalantiduu leeyahay ninkaas hadduu nin labxaniyood yaho nin wanaagsan yahay oo cabdi ciise yahay yaa in qolka reer mahad laguu soo galo oo lagugu falanqeeyo ma raalliu ka noqon laha marka cabdi ciise iyo reer mahadkii ayuu rabaa haddana inuu iska sii horkeen uu leeyahay nin labaxaniyood ahoo cabdi ciise hadduu yahay ma ogolaan lahaa macnaha qolka reer mahad in lagugu falanqeeyo laguu soo galo hadalladaada lagu sheego miyuu rabi lahay marka aniga wax kaama rabo anaa wax walba kuu qabanaayo okay dadkaas isla dhashay ayaga is leh haddii aa u kala abtiisoo tiri maxaa qolka reer mahad lagugu falanqeynaa adiga yaa kuu baneeyey in qolkaada lagu falanqeeyo maxayse aa isku tihiin haddii famil ahaan la yiraa dadkaan ayagaa isxigo hoos isu sii xigo iyadii wuxuu ka fahansiinaa macnaha qolkan reer mahad ee lagugu falanqeeyey meel xun ayay ahayd camal halkaasuu kasii tusaa dadkii uu rabaa inuu madaxa isu sii geliyo
والله ninkan dabshide aad u weynaaday waaye sidaas daraaddeed iyada waxa looga faa'iidaysanayo waxay tahay ooyintaani iyo balwada iyo wax ahaayo dhibaato kale ma hayso ilmaha laga haysto dad badan ayay kala mid tahay oo looga haystaa laakiin waxa waalaayo waa balwadii iyo waalidkeedoo ay close ku ahayn sababtoo qofkan dad badanaa la dhashaa la yidhi walaalo oo waxay leedahay garab taagan oo maraykanka iyo sweden iyo dhulkaan oo dhan degan waxa ay siinayiin wax muuqdo oo wax lagu qabtay u rabaan iyadana waxay rabtaa boqolkan iyo 200 oo ninkan uu siinayo daahir cali sow oo ay balwada ku gadanayso wuxuu leeyahay hooyo iyadoo masaakiin ah hooyo iyadaba kaniini ku seexanayso hooyo iyadaba kan ah waxaasoo dhan uu kusii bahdilaa dhaguhu usii dhukaynaa macnaha soo aniga hadda ka hor waxba lacag kuma siinin miyaan kugu sheegtay muxuu ahay anoo sheegaya maali maqli nin asaga soo xigo oo gabadhan u naxariisanayo muxuu ahay wax u taraayo iska dhigaa daahir cali sow gabdhaha soomaaliyeed dhulkuu ku jiida rag iyo dumar asoon u kala naxariisanaynin ayuu haddana gabdhaha ugu sii daran yahay hooyooyinku ugu sii daran yahay ma hooyo muxuu ahay gabba isdheeraa jirto naciimo joker gabdho kale meequu barahan bulshada ku rifi jir uu ku dhibaateyn jir uu ka heri waayey oo muxuu ahay macaashaa maanta gabdhahaas gamba dheer mase ka wanaagsan keliya waa tubaraac oo markaas uu يعني جني دارو ذا هاي مقت حنون دارو ذو قبا إن كستو سومالي ذو نن دبعتها وياهي هدانه دارات كانوا ولا قاعية قف مرك دارات مركو أركو قبل دي وحسكي كديجا قف أنفع يا وكلانتو ومعناها نين كان وو يساوي عيري أسكن عد كيسو إيدي سيدين دونا وو يساوي عيري تلفونكو يساو قلي وحو يده هاي إن يساكر waxaa igu cadday in aan arrinkan aniga aan kuu soo diray wax iga suurtooba ma ahan nin dad lahoo ehel lahoo la cishan karo famil lahaan ahee igu cadday in aan aniga masawiradii qaawanaa ee caaisha aan kuu soo diray markaan dhoon qolkii usoo koray wuxuu go'aansaduu yiri inuu iyadii aniga iska keen uu yiraaho la hadal iyada iska celi iyada la hadal iyada marka gabadhii macnaha uu adeegsana marka ninkina waa ninkan aad u jeedaano hadalkiisa marka idin sii deeyo wad arki doontaan ma hada la yiraahdo macnaha hadalkiisa hadal miisaaniyad leh oo qiimo leh oo sheega oo wuxuu leeyahay anigii daahir cali sow dad is yaqaanana manihin isku levelna manihin mentality ahaan dad isku si u fikirina ma banihin maskaxiyanba sababtoo ah daahirna wuxuu u fikiraa inuu dadka iyo qabiilka iyo qabaa'ilka u caayo ummadda uu dhibaateeyo marka isku si uma fikirno mid kale sidoo balaha bulshada ugu dhex jiro isa aniga ugu jirno isku mid manihin sabab keeni karta inaan anigi asaga aan isna qaanon telefoonna is dhaafsanane maba dhici kartuu leeyahay marka ninka codkiisa idin sii dayna wiilkaanne bal daawasho wacan iminka intaasoo dhan baa tusaale ahaan laysoo waxa doona laga soo sheegay oo beentaasoo dhan lasoo akhriyay oo haddana hal mar maan hadlin xitaa tusaale ahaan haddaanu isku dayo inaan waxaasoo kala sameeyo dee dad iyo family iyo ehel i qabsado aan u qabsoomayaa jiro dee waxa saxsan iyo waxa qaldanaya iyadoo yacni macnaheedu maaha inaynan maxay familkaas laakiin qofku inuu wax maqlo ayaa ka horeysa hal mar aan ku celiya mahado hal mar baan kaa dhexgelaya raallahu dadkaan rabaa inaan hal mid u bayaaniyo especially dadka ay khusaysa family aan ma jirteen baan la hadlayaa war arrintaani arrin social media ka maqan maaha intii caan dhaweynay daahir cali sow uu been iyo tuubarac samayn lahaa qolkaygaa la qaataa in arrintan lagaga hadlo labadaba anaa family ah labada maanta hadday noqoto ha loo hagarbaxo anaa u hagarbaxay daahir cali sow ma hagarbaxay caan dhaweyn tuubarac iyo qabiil iyo meel daran buu naga soo marayaa marka taasaa keentay inaan su-aashan hadda dambe weydiiyo oo annagu aan falanqayno wixii aan la qaban karno ama xalka aan keeni karno haddii loo garqaadayna annagu aan u garqaadno gartaani soomaali uma taal waa gar family soomaali uma taal marka su'aalaha noocaas oo kale haddaan weydiiyo hamoodinina inaan tuubaraaciyo ama labada qof waa ilmaadeertay waa mid baa kusoo noqonaynaa khaalidow ku socda xalay tolo waxay la soo hadlay ninkii daahir ma garatay haa waa lagu soo sheergareeyey ninkaasaa ku raadinaya oo wuxuu dhahay gabadhii buu video iyo waxaa ka wareejinaya maadaa lagu yiri gabadha video ka wareejinaya haa yani daahir baa wuxuu dhahay video ay gabadhaasi leedahay buu ii soo diray
iyo sidoo kale hooyadeed horta aad waxaan uga xumahay inuuna ogsooneyn aniga familkan inayna laba qof ii kala ahayn problemku iska jira oo laba qof way isku dhici karaan laakiinse familka xitaa qabiil ma aha yacni arrintan ka hadla laakiinse familku waa familkayga waayo waa hooyadeed sooma arag xitaa waxaa laga sheegayo inaan dee dadka ka maqlay mooyaane xitaa fideoga indhama saari ma arag ma raadin inaan hadal isoo gargaaro waa laga yaaba inaan diro oon qof u diray iskaba daaba hadalkeeda wax xaaraan biga tahay ma arag wallaahi oo bilaahi oo tallaahi maan arag nin qof dhaarta kii aamin waayaa ka xun baa leedahay haddii rabaa ha aamino ama haddii rabaa taasi ani micno badan ima samaynaysa laakiinse inaan un sheego un barada xitaa maan arag laakiinse dadka xitaa maqalka ma aha inaan cod ka maqlay dadkan ka maqlay xaaraan bay ka tahay xitaa maan si diribtiya dhigteeda uguma soo dhicin waxay hooyo lahayd haddayba jirtaba arrintaasi horta waan ka cudur daaranayaa taasi ma jiri taasi waxaan ninkaas u diray malaha anigiyo daahir calasowna dad isyaqaana manihin daahir iyo aniga wax iskula filmanihin oo wax isku kaayi keeni karayo mentality ahaan ani saan u fikirayo isagu siduu u fikirayo siduu bulshada isagu ugu dhex jiray anigu saan bulshada ugu dhex jira way kala duwan yihiin ma garatay anuu weligii alahay maal lama arag anoo tiktok soo intaa soo furtay amba wax soo duubay oo kale oo qabiil caayaya amba wax sameyna amba ma garanaysaa hadda markaasi daahir horta sabab aan contacti ku yeelana ma laha gabadha wuxuu dhahay fideoya ay leedahay oon fiicnayn amba ay qaawin tahay oo kale ayuu ii soo diray mahad sergio kadibna wuxuu dhahay meeshaada soo dhig anuu social media waan isticmaalaa waxa uu isticmaalaa oo dhan waan isticmaalaa tiktok waan isticmaalaa snapchat waan isticmaalaa facebook waan isticmaalaa isaga intaan wax u marinayo dee anaa meelahaygaa soo dhigi lahaa haddayba iga suurtoodaba midda kale problemka hadda soo kordhay ee hadda yimid waa maxay hadhow toole ninkii waa ii yeedhay waxaa rabay markaa isaga inaan la hadlo isagoo ku dhaha goorma xageen kuugu soo diray ii sheeg waxaasoo dhan kadib wuxuu rabay inuu haddana gabadhii anaga afka isugu kaayageliy gabadhan la hadal gabadhan u jawaab okay ninkan waaba isnaqaanay somaha isaga wax sheegaya isagaana dhahay qolka soo koro isoo kursiye ii yeedhini ilaa mana hadli karayo dadka ma bilaa aqliba ninkan muxuu ninkan hadalkiisa u diiday haddayba dad hordhigayaa hadda gabadha mu igu cadday oo dhaha adigii saa igu dhaha lambarkaagu waa sidaas iyo sidaas adigii soo dira waka muu dhaho waa maqlaysaan wuu jahawareerinayaa dadkii ma garatay kadib gabadhii buu rabaa gabadha u jawaab aniga hayla hadlin dee waa qaabku aaladan ku joogo tiktok gabdho kaloo meesha la saarnaana hadallo fiican ma lahayn laakiinse haddaan kasoo gudubno aniga gabadhan hadda isku usubnahay maaha oo gabadha muddo aan isnaqaanin wada joognay problemkuna wax hadda uun soo dhacay maaha muddona wuu soo socday waxaan markaas sameyn waayeyna hadda suurtagal maaha haddii aniga waxaasoo kala ilaa inta yoomulqiyaamuhu soo dhacay kasoo baxayo dhinacaasi cadaadhaca waa la sugaya igama suurtoodo daahir tumbaraa iyo howlihiisa qabiileysiga iyo waxaas iska wataa laakiinse anu nin waxaa ku jira maihi fadlan arrintaasi saasuu la socda waa maqlaysaan horta daahir calasow inaadan keligaa maahan aniga meeshaan joogo afaraata ka saaca ismaagno wallaahi bilaahi tallaahi nambarna kama hayo nambarkiisana ma hayo kaygana ma hayo asug maalin walba khaalid baa isoo wuxuu yidhahdaa waa wax uu horta meeshaan irsaaqad kaga raadiyo inuu been sheego waana nin weyn oo aad aragtayo labadayda waan dhali karaa adna waa ku dhali karaa laakiinse maxaa waxa ku dhex jira ani waxaan garan waayey keliyaata xitaa been marka la sheegayo been yaroo nooc kalaa la sheeg laakiinse beenta saaid bay weyn waa maxay yani dhibaatada intaa leeguu rabo qofkii inuu dadkii kala dhex dhigo anigu dadkan family baana xitaa ma aha family maaha gabadha mayna gabadh soomaaliyeed ahayn how ay macquul u tahay inaan gabadhan intaan soo qaado horta waxaasba ma jiraan fideoyadaas iyo waxaasba ma hayo waxaas waa waxa iska jira laakiinse murankaa fideogaas waxa haddaan ka tago see u suurtagelaysa waa aniga cadceedda meesha ka dhacda inta la sugayo kalaa la sugayo inay waxaas iga suurtoobaan magarata sharaftayda way ka weyn tahay karaamadayda way ka weyn tahay hiigsigayga iyo waxaasoo maara
na waxaad ku garanaysaan aamusnaantaas iyo qunyar socodkaas iyo dantigaradkaasaan ahay aan qof intaasoo dhan la xagin laga yaabaa in dadkiina qaar aydan dul qaadateen oo weliba hadda uu Khalid ilo soo hadlo uu dhahay arrinta inaa ka hadasho way maadaama muddo soo jiidanaysa xitaa waxaan la soo qisayna ahay marka aniga mustaqbal dheer baa hiigsanaya hami weyn baa nolosha kaleya ilmahayga isagoo sanka taagaysan anoo sanka taagay laysoo koriyo kalaaba raba inuu u koro uu noolaado ma garatay hadday suurtagal noqotana hooyadii iyo ilmihii la isku geyn karin isku geeyo haddayna suurtagal ahayna aabihii bay ku ogtahay wax dhibaataa ma laha marka fadlan waxoogaa waa iska ma fiicna idinkana hadal inuu naga tago oo qof aadan ogeyn xaaladiisa amba waxa dhabtaa ku sugan fadlan inaad dembi ku shaqaysataa ma fiicna isma garanayno xaggan kugu saamixi karaa iminka haddaad waxa doontay soo dhaada waxaan filaa inaad daawateen hadalkaas ayaa barihii bulshada yaalo walaalayaal gabadhan cid wax u sheegto insha allah inay hesho daway u baahan tahay daryeelay u baahan tahay deganaanshay u baahan tahay laakiin waddo aad u qaldan oo ah waddada daahir calisow ayay ka raadsatay daahir calisow ma aha dabiibka ummadda soomaaliyeed daahir calisow ma aha daryeelka ummadda soomaaliyeed daahir calisow ma ahan ninka ma aragtay lagu soo oon kara ma ah gabdhaha soomaaliyeed ee arrimahaas ku fikiraya daahirow wallaahi dab holcaaya ayaad afka ugu dhacdeen maalintaad daahir aad dantiina u sheegateen ama aad daryeel ka raadsatiin walaalayaalow qof kastoo dhib uu ku dhaco qof waaweynaad tihiin dad waaweynaad tihiin ilmo yar ma tihiin meelaha dantiina ay taalo iyo daryeelka waddan dowladeed qof joogo oo maanta daahir wax ka raadinayo muxuu kuu tari karaa daahir dibaduu ku nool yahay ya maalintuu soo galay ilaa maanta inuu ummadda soomaaliyeed dhibaateeyo maahane waxna kama baranin waxna ma yaqaano wax uu dadka dheer yahayna ma jirto giftigaas iyo beenabeenaydaas iyo waxaas la aruurinaya dadka korkoodu ka aruuriyaa oo ma aha mid ay jeebkiisa kasoo bixayso walaalayaalow intaa fahantiin yacni gabadhan dadka familka u ahoo hooseeyo inaad qabsataan isku daya waaba haddii ay qabsamayso hadday qabsami waysane yacni haddii uu yidhaaho reer muxuu ahaay reer mahad iyo reer hebelow iyo qof yacni weligiis kaa horreeyay uu kaa horreynaa daartu dhulkaas ku garaacay daartu waa isdilaysaa daartu waa isdhibaataynaysaa laakiin daahir calisow dadka ka raadinaya daryeelka iyo dawada idinkama jiro meeshaas soomaaliyoo dhan qof uu naxariis u haayo ma jirto ummadda aadan yacni dadka in la bartaa fiican ninkan waxa lala baran la'yahay iyo beenta iyo borobogaantaha alla ka cabsi la'aanta ee waqti walba uu ku dhaqmaayo ee dadkii haddana aysan fahmaynin jihadiiu dadka ka wareejina gabadha jahwareeruu ku ridaa telefoonka hoos uga diraa maantana uu waca booskeedoo ku jirto masawiradeedi waa kuwaas sidee dadka ugu diraa iyadoo cawradeeda maan diraa iyadoo qaawamuu diraa mal dad uu u naxariisan jirin miyaa jiri ninkan ninka adiga facaa ee maanta kula faca wallaahi adduunka dushiisa nin wax qabsaday ama ummaddiisa wax u qabtay waa ninkan cuqdadu ku nool yahay cuqdad baa hayso cuqdada haysana waxay tahay mid anaga aan ka saari karno soomaali ay ka saari karta ma ah wuxuu darajo ka raadinaa ama uu xasilooni iyo deganaasho uu ka raadinaa isku dirka dadka qabaa'ilka soomaaliyeed isku dirka dadka walaalaha ee jifooyinka ee si hoose isula dhashay intaas inuu ku dhex mashquulsanaado 24 saac yaa intuu baraha bulshada tiktok fadhiya ee da'daas ee maanta dhan dhalinyaradan iyo caruurta la sheekaysan karo ku dhex milmim karo nin asaga lafac oo tiktok ka qaylinaya ma jirto waxaan dhalinyaro ku jiro wallahi wuu wada dhali karaa haddana dhibkaanuu ku hayaa ummadii iyo dhibaatadaas qof walba oo ka geysan karo wallahi oo ninkan dadka yacni ka canaanan karo oo ka hadli karo wallahi idan laga xishoonayn laga cabsanayn runta wejigaa laga saaro walaalayaal waayo waxyaabihii reer bani israa'iil lacnada ay ugu dhacdo kale noqonaysaa dulmigan uu samaynayo in looga aamuso lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciisa bnu maryam uu ilaahay dalika bimaa casaw wa kaanuu yactaduun kaanuu waxay ahaayeen laa yatanahuuna can munkarin facaluuh labisa maa kaanuu yafcaluun macnaha maanta dhan munkarka iyo dhibaatada iyo dulmiga ay samaynayeen dad iska celiya ma ahayn waa inaan nidhaahaa daahir calisow aad baad u edab darantood ummadda uga xadgudubtaa kadaa dhibaatada kadaa hooyooyinka soomaaliyeed aa ka faa'iidaysanaysa emotionalka kadaa gabdhaha soomaaliyeed aa ka faa'iidaysanaysa emotionalkoodii ooyintoodii iyo intay hormoonadooda ay isku dhex qaldan yihiin oo aysan macnaha control aysan lahayn iyadana waxaan leeyahay waddo qaldan ayay saaran tahay
haddii dad iyo xigaal ehel qabsan kara ay jiraan caasho qabashay u baahanta haddaysan qabsan karinne wallaahi meel xun ayay ka raadisay muxuu ahaay dawo walaalahayga janalka dhaqaaqa daxashidee muuqaalkan caawa dheeraana waana ugu talgal inuu dheeraado sidaas daraaddeed gabadhan waa hooyo soomaaliyeed dhibaatooyinkii iyo korriinkii ay kusoo korto horo ayay ka ooynayso macnaha hooyadeeya isixirtay hooyadeeya macnaha sixir wax iigu dartay wuxuu leeyahay marka anigaa hooyadaa kula heshiisinaya anigaa iskiin baraya anigaa macnaha iskiin fahansiinaya adigii hooyo sow diyaar uma tihid weligay ma farxin ma daahira farxad ku siin karo wada qaldanay saarantaa iyada laftirkeeda hooyadaa marba haddii nilii kala turjumaayo oo qof intuu idinsoo dhexgala aaragtid adigii hooyadaa in nilii kala hadlo caasiyadaa tahay hooyadaa haddii ay macnaha kaa qaldaneed iyo haddii aad ka qaldaneedba maanta adigaa waddan fursad leh joogtid waad ka faa'iidaysan kartaa inaad 24 saac xiriirisidood hooyoy qaladkii horoo dhacay aan iska cafin ayadoo nila soo dhexgelin marka waxaan leeyahay walaalahayga janalka dhaqaaqa daxashide waa darhaamo socoto waa cid aan dad aan runtii isu sheegaynin 24 saac jahwareer iyo rabaan inay kaliya loogu sacabtumo war ninkanoo kale looma sacabtumaayo muuqaalada u fiirsada lifeka markii lagu jiro qofka hoos u qabaca sidaas dheh saan dheh waa qof oo rumuudka u haayo uu hogaaminayo ayuu rabaa haddana inuu yidhaha ninkaasaa saas ku yeelay ninkaana saan ku yeelay ninka hadaladiisana waa daawanaysin sida macquulka ee uu uga hadlaayo in macnaha iyada asagii caasho ay yihiin dad ehel ahoo wada dhashay maalin alla maalintii ay macnaha dowladdu u ogolaato inay ilmaheeda haysan kartane uu gacanta ka saaraayo marka subxaan allah wanacuudu billah ma naciimo jookaray gabadhan ka qiimo badan tahay inta ogaantaad gabdhaha soomaaliyeed dhulka aad ku rifaysood jiidaysood dhibaataynayse dahir calasow ilaahay ummadda soomaaliyeed ha ka qabto walaalayaal aamiin dhaha wallaahi ummadda soomaaliyeed ilaahay ha ka qabto bil barakaysanaa lagu jiraa waqti aad u camal wanaagsanaa lagu jiraa ducadiina waa la aqbalaa aamiinta gura ilaahay dahir calasow ummadda soomaaliyeed ha ka qabto aamiin dhaha dhibaato aad u weyn ku haya ummadda iyo bulshada soomaaliyeed wallaahi yacni cid ugu rooyaa ma jirto shalay qofku la gurbaantumanayay uu la socdo oo la jaqjaqlaynay biri waa kana kiyo kasoo horjeedo haddana caaytamaayo xismanaayo meel u roon ma jirto dadka uu sheeganayo laftirkeeda hataa yacni dad uu u roon yahay ma aha dadka uu sheegta xataa ma aragtay dad uu u roon yahay ma aha 24 saac uu ka daba jeejida uu ka daba dhareera uu ku daba dhagan yahay ha subxaan allah wancuudu billah relevanti waa khayri caafimaad waa idin salaama intaas iyo nabadgelyo daraamadiisa iyo muxuu ahaay darxumada oo ummadda soomaaliyeed ku haayane ducadaasaa inoo ballanne inaan ka ducaysano nidhaaha ilaahayow adaan kuu sheegne dahir calasow ummadda ka qabo ummadda soomaaliyeed ilaahu ka qabo aamiin yaa rabbi intaas iyo nabadgelyo waxal ku dhigeennii iyo ku noolow nolosha aad doonaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qaado qalinka khayrka aad daaftid